قصص الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimada ahay waxaan idiin soo gudbin doonaa qisadii saddexdii boqor ee isdilay. waabaa waxaa jiri jiray boqor faajir ahaa oo la oran jiray Judaymatul Abrash, waxaana uu boqor ka ahaa dhulka hadda loo yaqaano Ciraaq. kibir iyo isla weyni ku jirtay awgeed waxa uu weeraray boqor kale oo haystay boqortooyo ku dhaweytiisa, waxaana boqorkaasi uu dhalay laba gabdhood oo ahaa dhaxal sugayaasha boqortooyada aabahood. boqor Abrash ayaa maalin cad dilay boqorkii kale, waxaana uu dib ugu laabtay boqortooyadiisii. Sadaa oo ahayd mid ka mid ah gabdhihii uu dhalay boqorkii geeriyooday ayaa la wareegtay boqortooyadii. muddo dabadeedna waxa ay warqad u dirtay boqor Abrash oo ahaa boqorkii dilay aabaheed. warqaddii ayaa gaartay boqorkii Judaymatul Abrash, waxaana ku qornayd fariintan: ku socoto boqor Abrash, ka timid boqor Sabaa. waxaan ahay haweenay gaartay xilligii guurka, waxaana go'aansaday inaad adiga i guursato, waayo aniga oo ah boqorad waan siisan waayey inaan guursado kuwa aniga igu hoos nool, iyadoo ula jeeda wasiirada iyo ciidankeeda. haddii lay guursanayana waxaan rabaa inuu i guursado boqor adiga oo kale, waxaana kuugu wareejin doonaa haddii aad i guursato boqortooyadayda oo idil. wixii hore ee dhacayna aan iska wada ilowno labadeennuba. arrimahaasi iyo arrimo kale oo jacayla ayay u qortay Sabaa boqorkii Abrash. Abrash boqorkii faajirka ahaa ayaa qaaday durbaba dareen jacayl, waxaana uu isugu yeeray wasiiradiisii. arrinka ayuuna u bandhigay, waxaana ay la qaateen guurka boqoradda Sabaa. nin la oran jiray Qasiir oo ka mid ahaa dadka caqli ahaan la liido ee ku hoos noolaa boqortooyadii Abrash ayaa ku yidhi boqorkii, ha guursan, hana aadin Sabaa. waxay doonaysaa inay ku dhagarto kaagana aarto dilkii aabbaheed. boqorkii ayaa shakiyey, waxaana uu dib isugu yeeray wasiiradiisii. mar kale ayuuna arrinka u bandhigay, balse sidii hore ayay ku yidheen oo ahayd guurso. waxaana ay u sheegeen Abrash in Qasiir uu yahay doqon aan la qaadan karin hadalkiisa. boqorkii waxa uu isu diyaariyey safarka boqortooyadii Sabaa, waxaana isa soo raacay isaga iyo wasiiradiisii. Qasiirna horay ayay u soo wadeen. wax la socdaba boqor Abrash ayaa mar saddexaad ku yidhi wasiiradiisii, miyaad ku qanacsan tihiin inaan guursado Sabaa? guurka Sabaa dhibaato ayaan kala kulmayaa mise guul? wasiiradii ayaa u sheegay inuu ku liibaani doono Sabaa haddii uu guursado, waayo boqortooyada Sabaa iyo tiisuba isaga ayaa maamuli doona. Qasiir ayuu ku yidhi, war adigana waa tii adadaaye lahayd, dhibaato ayaa ka imaanaysay, maxaad u malaysaa? Qasiir ayaa ku yidhi, boqorow, haddii marka aan tagno albaabka boqoradda soo dhowayntu ay noqoto mid ay fardaha ka daataan innagana ayna hor socdaan, waxa ay noqonaysaa wixii aan sheegay waxba kama jiraan. balse haddii ay taasi dhici weydo oo fardahooda ay saarnaadaan, ogow waa lagu khiyaanay, in lagu dilo ayaana la doonayaa. laakiin hawalwelin, waxaan wataa geenyo dheeraysa oo ayan jirin geenyo kale oo orod ku gaarta. waan kuu soo dhowayn doonaa marka aan arka khiyaanadooda. ku soo bood, waana kula soo ordi doonaa. boqor Abrash iyo wasiiradiisii ayaa ku qoslay Qasiir, iyaga oo yasaya hadalkii uu yidhi. wax la soo socdaba waxaa la soo gaaray gurigii ay degnayd boqoraddii Sabaa. markii ay gurigii gaareen waxaa dhacay wixii uu ka cabsanayay Qasiir. boqorka ayuuna ku dhowaaday oo ku yidhi, inakeen wixii aan kuu sheegay waa ay dhaceene. balse boqor Abrash ayaa ka dhaga adeegay arrinkaas. ciidankii Sabaa ayaa go'doomiyey boqorka iyo intii la socotay, waxaana meel bannaan lagu xirxiray boqorkii faajirka ahaa ee isla weynida badnaa ee Abrash. boqoraddii Sabaa ayaa isugu yeertay wixii saaxiriin ahaa ee joogay deegaankeeda, waxaana ay weydiisay sida laga yeelayo geerida boqorkii faajirka ahaa ee Judaymatul Abrash. waxay u sheegeen in dhiiggiisa ay ka ilaaliso dhulka, waayo haddii dhiiggiisa uu dhulka ku dhaco waxaa la heli doonaa qof u aara Judaymatul Abrash. sidaas waxaa u sheegay saaxiriintii ay u yeeratay boqoraddii Sabaa. maqaar weyn ayaa loo diyaariyey, waana loo fidiyey. kadibna waxaa lagu dul gowracay maqaarka dushiisa, balse in yar oo dhiiga oo faniintay ayaa dhulka ku dhacday. mid ka mid a saaxiriintii oo welwelsan ayaana u sheegay Sabaa inuu soo bixi doono qof uga aari doona
dilkay u geysatay boqor abrash balse nasiib wanaag intaanu dilku dhicin qasiir waa uu ka soo baxsaday goobtii waxaana uu la soo orday geeyadiisii dheeraysay waxaana uu dib ugu soo laabtay boqorkeedii la dilay waxaana boqortooyadii judaymatul abrash la wareegay wiil la oran jiray camaar oo ay dhashay gabar la dhalatay boqor abrash maadaama abrash uu ahaa mid aan waxba dhalin muddo markii uu boqortooyada hayay camar qasiir ayaa u yimid kana codsaday inuu u aaro dilkii loo geystay abtigiis waa judaymatul abrash boqor camar ayaa u sheegay in arrinkaasi uu aad u adag yahay balse qasiir ayaa soo jeediyey inuu garaaco sankana ka gooyo si uu ugu tago boqoradda saba uguna sheego inuu baxsad ka yahay boqortooyada camar sidii ayuuna sameeyey boqorkii camar qasiir iyo geeyadiisii ayaa u soo cararay dhinacii boqoraddii saba waxaana uu u sheegay inuu yahay magangelyo doon loona haysto dilkii boqor abrash isaga oo lagu eedaynayo inuu jaajuusay amaba ka dambeeyey in la dilo judaymatul abrash boqoraddii saba waa ay aamintay qasiir waxaana muddo uu ku noolaa gurigeeda maalin maalmaha ka mida ayay weydiisay qasiirow maxaad ku wanaagsan tahay adiga waxaana uu u sheegay inuu aad ugu wanaagsan yahay ganacsiga waxa uu ka codsaday inay u dhiibto ganacsi lacag yar ayay u dhiibtay waxaana lacagtii uu la aaday ardul shaam qasiir markii uu la aaday shaam waxa uu dib ula soo laabtay lacag badan isaga oo wada waxaana uu u keenay boqoraddii saba ayaa ku tiray lacagtan badan xaggeed ka keentay waxa uu qasiir u sheegay inuu ganacsiga u yaqaano si wanaagsan mar labaad ayay u dhiibtay lacag kale waxaana uu aaday ardul shaam sidii oo kale ayuu u yimid waxaana uu keenay lacagtii lacag ka badan saba ayaa ku tiray war nin wanaagsan ayaa tahay mar saddexaad ayay u dirtay ganacsiga iyadoo aan ogayn lacagtan uu keenayo inuu soo dhiibayo boqor camar balse aanu ahayn badeeco uu iibiyey qasiir markii saddexaad qasiir ayaa u weeciyey awrtii lagu qaadaya badeecada dhinaca ciraaq oo uu deganaa boqor camar oo doonaya inuu u aaro abtigiis judaymatul abrash waxaana awrtii soo raacay boqor camar iyo ciidankiisii waxaana halkii ratiba soo fuulay laba rag ah kuwaasi oo iska dhigayey badeeco saaran ratiga dushiisa awrtii oo uu galbinaya qasiir ayuu keenay gurigii ay deganayd boqoraddii saba albaabka ayuuna ka soo geliyey iyadoo saba iyo ciidankeedaba ay u qabaan inuu wado badeeco iyo lacag badan balse markan waa ay ka duwan tahay labadii mar ee hore maadaama uusan lacag wadin balse uu wado seeftii lagu dili lahaa saba iyo ninkii dili lahaa intuba mid ka mida ilaalada boqoradda oo taagnaa albaabka ayaa shakiyey waxaana uu eegay mid ka mida awrtii nin ayuu ku arkay kadibna waa uu qayliyey boqortooyadii oo dhan ayaa isla kacday balse nasiib darro isla markiiba boqor camar waxa uu ka degay ratigii uu saarnaa waxaana uu aaday dhinaca boqoraddii saba taladii ayaa ku xumaatay waxaana ay ogaatay kii u aari lahaa judaymatul abrash inuu yimid waxay ku carartay god ay ugu talagashay inay ku baxsato balse camaar ayaa uga hormaray godkii zaba oo diidanayd inay ku dhimato gacanta camar ayaa nuugtay sun ku jirtay faraantii ay iyadu wadatay intii ay safanaysay ayuuna camar seef la dul tagay oo qoorta ka gooyey sidaas ayayna ku geeriyootay boqoraddii saba waxaana la soo afjaray qisadii boqorkii dilay boqorka ee dishay boqoradda ee uu dilay boqorka waa su'aale maxay tahay sababta aan idinku soo gudbinayo qisadan jawaab waxaan idinku soo gudbinayaa qisadan saddex ujeeddo oo keliya mid waa tan koowaade inaad ka digtoonaataan dhiigga aadanaha oo alle uu xarrimay haddii aad wax dishana xisaabta aad ku darsato inuu jiri doono mid adigana ku dili doona si kale haddii aan u idhaahdo mahmaa soomaaliyeed ayaa ahayd dilaayow dil baa kuu dambayn midda labaad ee aan qisadan u soo gudbiyey ayaa ah inaadan qofna yasin aragtidiisa oo aad qaadato talooyinka laguu soo jeediyo haddiiba aad noqoto taladoon waayo yasidii ay yaseen taladii uu soo jeediyey qasiir waxaa ku geeriyooday boqorkii judaymatul abrash ciidankiisii iyo wasiiradiisii intuba waxaana ay sababtay dilka boqor la dilay oo loo dilay boqor kale midda saddexaad ee aan idinku soo gudbiyey isla qisadan ayaa ah iyadana inaadan ku dhex kibrin dunidan waayo kibirka uma sugnaan qofna waxaana kibirka abrash uu sababay
inuu boqor dilo isna la dilo boqoraddii dishayna la dilo taasi oo sababtay aana soo socotay ilaa dilka 3 boqor ugu dambayn waxaan ahay walaalkiin shaashaa oo idin dardaarmaya taqwada alle idinkagana digaya inaad yastaan dadka kuna kibirtaan dunidan idinka oo daadinaya dhiig uu leeyahay qof bini aadan ah